كلية كمبيوتر كلية تنظهنا إن شقيه كورن قفك ودنكii jooga ee maanta fursadaas aan arkay fursadaas wax doon inuu sameyn karay يعني استاذي waxaan ka qayb galay shir dhalinyaradu ay isugu yimaadeen dhalinyarada Youth Connect Africa la yiraahdo 2022 ka dhacay magaalada Kigali ee wadanka Rwanda waxa isugu yimid 10 kun oo dhalinyaro oo muufaris iyo shaykaris ah oo ka kala yimiday adduunyada qaybaheeda kala duwan hadda Yurub dawladdu ku noqonaya ay dinka ama furfurayso ka hadli doonaa barnaamijyo kala duwan sida qofku uu bilaabi karo ganacsi side hustle oo kale ama adoo shaqeynaya ama adoo wax baran karaya sida aad qaybtaas ku dhisi karayso personal development-ka entrepreneurship-ka online-ka iyo qaabka looga shaqeyso fursadaha banaan iskida marka maanta waxa inoo martiya ustaad warsame aad baad ugu mahadsan tahay ka soo qaybgalka farxad inoo ka soo dhaw استاذي آدي أتبض ما سنت هاي الله شرفه فرحت بيت هاي نكارة سوق يبقى عمار بودكاست أتبض ما سنت أستاذ أديك مدن واحد سمعنا موضوعين إسكاد حكي لي دون إن شاء الله أستاذ هذين نقول لو نهك كوبا قفكم ما أنت هدوي نسبة دلار ربو personal development وبلا إنه قلا أو ربو شخصي سوس بدلو سلوك بلا بكريا قفكم سلوك نقول كريا قب حفكر وناكسن لا أما أبور جناعسها نقطة أما وحبرشها نقطة قاب كيد ما أنت بلا هدي بلد مهمة أو ما أنت حيلك أنا إن الله هاي هدي نقطة جناعسة هي هدي نقطة مرنت الشخصيات أو حيابة الدنيا عاد لو مشكوسين ما أنت و إنه وقف وككره حلقي هره أو كرو ملك سريس إنه وقف وكتجو جهلي إيه واحد مدرشة أو جدو أقانت إيه واحد كرشة حلا أي ما أنت كفي عنها إن الجناعسي سميسيد حلا ما أنت كفي عنها إن سايد حصل سميسيد حلا أي كفي عنها ما أنت إن النفط هذا كشق يسوي ولي ما يسوي من تاريخ هذا مرخد قفي يددال كيلو بحرة تستاذ waxaa maanta waxaa noolaa casriga informationka oo dhowr jeer muuqaalada kaga hadashay macnaha informationkuna kama dhignin informationku yar yahay informationka badan maadaama informationka uu badan yahay qofku maanta haddii uu rabo meel inuu ka bilaabo wax walbaaba ilbiriqsi baad ku heli karaysaa sidoo qofku maanta casrigan informationka ugu faa'iideysan karaya oo informationka saxda u raacay karaya ama fursadahan bannaan uu qofku uga faa'iideysan karaya والله casrigan informationka waxa ugu awood badan leh waxa la yiraahdaa bilaadku wuxuu soo maray xilligii stone age-ka wuxuu soo maray xilligii agriculture age-ka wuxuu soo maray xilligii industry age-ka communication iyo information age baynu maanta nool communication iyo information age knowledge is a king ama informationka iyo aqoonta ayaa ah awoodda xilliga informationka iyo communicationkana waxa ugu awood badan leh waa aqoon baynu nilay waagii hore waxaan ka soo guurnay xilligii man powerka ama man powerka waxaan soo guurnay xilligii mind powerka waxaan ka soo guurnay xilligii muruqa oo waxaan soo guurnay xilligii maskaxda markaan maanta xilligan ay noolnahay awoodda ugu weyn oo bini'aadamku haystaa waa maskaxdiisaasna sidoo isticmaalo unbuu helaya marka fursado badan baa jira maanta oo qofku wax isku bari karo fursado badan oo naftiisa ku dhisi karo fursado badan oo aqoon uu ku kororsan karo maanta mawsuuco YouTube waa mawsuuco weyn waa encyclopedia weeyaan intaas oo kun oo aqoon ay ku jirto aqoon diineed aqoon maadi aqoon kasto oo ay ku dhex jirto wax kasto u baahan tahay maanta wax isku baran karaysaa one click away xaggii hore culimadii hore ay ku qaadanaysay in cilmiga uu uga lugeeyo kitaab ama xadiis ayuu qaarad ilaa qaarad ay u lugeyn jiray adiguna intii baad ku helaysaa allah mustacaan one click away marka waxaan dhalinyarada odhan lahaa maanta xilligaas waxaynu u baahan nahay inaynu wixii inoo muhiimka aynu nafteena ku mashquulino koriimaha ugu badanna taas ayuunbuu noqonaya ayaan leeyahay ustaad waxa weeyaan dhalin badan baa ku xiran podcastgeena su'aalaha badan ee soo weydiiya waxa weeyaan seen ganacsi soo bilaabi karaya halkeen ka bilaabi karaya ustaad waxaan rabaa waqti baan hayaa waxaan rabaa inaan waqtigii kaga faa'iideyso soo waxay rabaa inay side hustle sameeyaan ama arday jaamacad dhigato kale ama meel ka shaqeysa ama qof shaqeeya oo rabo shaqada inuu iska joojiyo oo uu helo meel kale uu kaga maarsami karayo qofkaasoo kale qaab ku bilaabi karaya maanta qofku side hustle fursadii waan haysanaa informationkii click baa ka xigto qofkii cilmigii baran karayo halkee weeyaan weyga ugu fudud oo qofku ku bilaabi karayo siduusa u bilaabi karaya wallahi waa su'aal aad u muhiim ah ustaadii maanta ganacsiga fudud tahay waagii hore 5 sano ka hor markii aan bilaabay ganacsigayga transport industry
waxay qaadatay inaan lacag urursado waxay qaadatay inaan bookkeeper hire gareeyo waxay qaadatay inaan gaari soo iibsado waxay qaadatay that is amazing waxay ahayd shaqo aad aanan caadi ahayn baad inaad gaari raadsid waxaad samaysid then baad businesskaaga bilaabisid businesskaaga markaad bilowdidna inaad macaamiil ka raadisid bay noqonaysa laakiin maanta adoo ardaya maanta adigoo shaqo kala dhiganaya maanta adigoo wax kasta qabanaya ayaad entrepreneur noqon karaysaa ayaad side hustle samayn karaysaa book baa jiraan dadka youtube-kayga aad ugula taliyo la yidhahdo 100 side hustle ideas uu qoray nin la yidhahdo Chris Killabo waxyaabuu kaga waramayo waxaa ka mid ah wuxuu ka hadlayaa qof dad sameeyey iyagoona shaqadoodii ka tegin oo shaqadoodiina haysta side hustle sameeyey side hustle-kii deeto main hustle uu noqday oo uu ka fasaxay inay shaqadii joojiyaan marka waxyaabuu aadka uga hadlaya waxaa ka mid ah dhalinyaro badan buu ka hadlaya marka maanta way fudud tahay waxyaabahan ardayda faca koraya aan ugu dhiga ardayda waxaa ka mid ah keliya tu computerkaaga iyo waqtigaaga soo qaado soo fadhiiso hal maalin baan kugu baraya sidii aad ganacsi ku furi lahayd one day aniga waxay iga qaadatay years bay iga qaadatay keliya ta maanta wax kale uma baahin computerkaaga soo qaado waqtigaagana soo qaado dan sit soo fadhiiso intaa keliya ta hadduu qofku helo maanta wuxuu u baahan yahay bayrat ma jirto keliya wuxuu u baahan yahay aqoon keliya wuxuu u baahan yahay xirfad marka maanta ma jirto xilli excuses iyo aynu marmarsiyo u gali karayno inaad maanta aad ganacsi furan kari weydahay maanta ma jirto boqolaal qof ayaa malaayiin iyo boqolaal kun oo dollar ka samaynaya online-ka weliba gaar ahaan e-commerce industry ustaad waxa weeyaan waan dareemi karayaa in maanta waxa weeyaan ay fududaa qofkii samayn karaya faca koraya dhalinta aad baad u qalab qabataa ma jirtaa qaab istaraatiiji tusaale ahaan oo kale qofkii waqti bay ka qaadanaysaa inuu barto businesskii uu soo bilaabay uu galay waa maxay waxa koobaad qofku inuu isweydiiyey uu yahay ama qaabka uu bilaabi karay ladisii qofkii wuxuu xiisaynaya business inuu galo ma garan karaya laakiin ganacsigii uu gelayay ma jirtaa qaab aad u marayso step ardaydan faca koraya oo ay maraan oo kale seese kula talisaa markay bilaabayaan ganacsiga والله هو سؤال هذا مهمة ورته هو حرفة ويا محن عن برنامج يردا e-commerce marka la yiraahdo maanta de keliyata computer ka keliyata u baahanaya inaan shaqeeyo that's all I need that's all waxaan Allah musta'an rabo inaan ka shaqeeyo macaamiishaydu 78 wadan bay joogaan hadii noqoto macaamiishayda digital product ka iibsata ama kuwa physical product ka iibsada marka su'aashu waxay imanaysaa ay noqonaysaa qofku inta leeg buu isagu diyaar u yahay inuu barto waxan waa taas weyn waxyaabaha aad baranaysid waxa kamid ah kow inaad xirfad baratid maanta haddii aad adduunyo rabtidna aqoon ba ayaa kugu waajiba haddii aad aakhiro rabtidna aqoon ba kugu waajiba labada maadaba haddii aad rabtid aqoon ba kugu waajiba marka su-aashaadu waxay ahayd ban ayaan filayaa sidee buu qofku ku bilaabi karayaa wuxuu ku bilaabi karayaa kow inuu xirfadii barto xirfadda markuu barto xirfad waa wax waqti u baahan waa wax fadhi u baahan waa wax ayna nafta ku raaxaysanayn waa wax aynan la mid ahayn TikTok iyo Instagram iyo meelaha Allah musta'an bay joogto waa wax fadhi u baahan marka haddii uu qof maanta sweet equity-giisa hadduu bixiyo oo uu bixiyo hantidu laba ay kala baxdaa mid waa waqtiga waxa la yidhahdaa waqtiga iyo dadaalka iyo energy-ga taas waa sweet equity baa la yidhahdaa oo waa energy wax uu kaaga baahan energy aqoon kaaga baahan marka intaan lacag bilaabin ama lacag aanad qaadinba naftaada inaad waqti ku bixiso weeyaan instead aad lacag ku bixin lahayd ganacsi weyn oo dhis lahayd maanta waagii hore waxay qaadanaysay dee inaad ganacsi dhisto tobanaan boqolaal kun oo dollar waatan ku sheegay imika markaan bilaabay transport industry lacag badan bay iga qaadatay inaan bookkeeper qaadatay inaan habeen iyo dharaar shaqeeye qaadatay inaan macaamiil keenay ayay qaadatay marka maantana waxaan dayban ganacsi ku dhisaya maanta keliya tan ganacsi ku dhisaya weliba alaab aan weligay arag meel ay taala aan garanin Allah musta'an aan weli la samayn ayaad iibinaysaa maha alaabtu inay alaab xun tahay waa alaab fiican laakiin xirfadda iyo teknolojiyaddan bay ayaa ku siinaysa maanta inaad alaabta iibisay ood commission saaratid inaad ka baxdo meeshaad deganeed xuduudii ood gali karayso meel kastoo adduunkaa samayn karayso ustaad waa very beautiful waxa waa fursadaha ka bannaan eed ka helayd nadeetole ayna waqtigii ay noo sababtay maanta haddii loo sheegi lahaa qof 30 jira ama 130 jira looran lahaa waxa lagu shaqaynaya guriga adigoo jooga ma aamini kareen waxa soo socdaana ka weyn waana bilowgii generationkii cusbaa adduunka isbedelaya oo maanta halka loo socdo baan arki doonaa guni baan uga hadli doonaa website-ga iyo adduunyada halka uu sii socotay iyo teknolojiyadu ilbaxnimada halka la sii gaaray waxa jirta ustaad dadka inta badan waxay yiraahdeen marka wax bilaabayaan soo waqti ma hayo
laga yaabaa qofkii isagoo shaqaynaya 8 saacadood uu leeyahay inuu ganacsi side hustle la bilaabo uu barto uu kaliya koorsada qaato ama maalintii 1 saac sameeyo wax hadhow tola ka anfacaysa inuu shaqadiisii kala joojiyo baa wax uu sameynaya waqti ma heli kara inta badan ana maanta waqti waxa kaga lumiya dadka social media-ga waan la soconay kulay waa waan inaad social media aad u isticmaali waa maxay istiraatiijiyada isticmaasho in aad yarayso qaabkaad ku bixinayso social media-ga qofku ama aad kula talin lahayd ama wax aad adigu martay oo daraasaysay ma jira oo oran lahayd waqtigaaga waxaad u gaabin karaysaa sidan iyo sidan dhowr saacad ka soo jari karaysaa ka bacdi qaybtaas aad business ku samayn karaysaa marka transport ka shaqaynaysay shaqo caadi ka sameynaysay intii aad shaqadan aad u wareegin habkee baad u samaysay inaad waqtigaaga u maarayso si aad u barato khibradan skillskan ka bacdi hadhow tola aad ka dhigatay shaqadii abad aad ku shaqayn karaysay aad baad mahadsantahay Camaaro laba su'aalood baad weydiisan ayaan filayaa sidee buu qofku social media isaga yaran karaya taan ku horeeyo qofku maanta xilligan aynu nool nahay waxa ka adag oo ka adag inuu qofku naftiisa ka adkaado oo meel fadhiiso shaqo boorna qabto malaha dee in container alaaba rog lagu yiraahdo waayo in creative adduunyadu creative way guurtay book baa jira la yiraahdo 21 lessons from 21 century marka wuxuu kaga waramayaa adduunyadan xagay u guurayso waxyaabaha laga tagi doono truck drivers badan baa shaqooyinkooda waayi doona waxyaabo badan baa laga tagi doona dadkan kaasada jooga imika Europe iyo meelaha wada aragteen dukaano wax jira Amazon fresh cidna ma hayso wad galaysaa alaabtu ma soo qaadanaysa marka waxyaabahaas oo dhan laga tagay baahi badan oo bilaadanku maanta qabo waxa kaliya tii haray muxuu noqonayaa creative minority-ga inuu bilaadanku xirfadaha abuur kale haday public speaking noqoto haday noqoto xirfadaha ku dhisaya shakhsi ahaan ku dhisaya waa xirfadaha qaaliga sii noqonay maanta marka waxyaabaha aadka u muhiimka ah waxyaabahaasna ma qaban karaysid haddii aanad fadhiisan oo aanad discipline aanad naftaada ka adkaan oo aanad odhan everything kugu soo dhaca sax maalin iyo labo inay kayr dhacda macquulo oo salaamada ka dhacdo laakiin back to work bilaadan baynu nahay dhamaanteen waynu kala dhacnaa waxa sarka Camaaro imka social media gaar ahaan Instagram social media ka saar social media isku ma jiro haddii ay noqoto YouTube horta isagoo outlier kuma jiro isagoo tirada kuma jiro YouTube waa mawsuuco inkastoo ay shorts hadda soo dhex geliyeen oo shortsku uu khalkhal ku samaynayo oo aanan aad u jeclaysanayn inay badadaala ka dhigaan inkastoo competition badan ku socdo YouTube ku duwan YouTube waa mawal aad aqoon ka qaadanaysid aad information ka qaadanaysid aad xog ka qaadanaysid xogaa entertainment ay ku jirto laakiin qofkii doonaya ku dhex kori karo laakiin Instagram iyo TikTok imika waxaan ka maqnaa 5tii bishii 10aad baan joojiyay 5tii bishii kaga soo qabo ilaa iyo imika waxaan sanaa 5 bil ka maqnaa laakiin kuma soo noqon wali igumana jirto maslaxada inaan ku soo noqdo Instagram iyo TikTok intaan geengareynay ama islahaadee waxbaad geengareynaysaa intaan loose gareynay baa ka badan oo maxaa ka mid ah focuska ka mid concentration ka inaad meel fadhiisan kari weydo 3 daqiiqo aad taxi hawl ku taalay aad ku dul mashquuli kari weydo maskaxdaadu distraction maanta telefoonka xagan dhaqaaq xagan kala dhaqaaq maanta dhan distraction aad ku jirtid waxyaabaha kale aadka ugu arkay waxa ka mid ahaa qof wax ma qaban karayo qof maanta social media ku jira qof maanta 2 milyan ee reelska ku soo galay ama 2 milyan ee TikTok ku soo galaya wax ma qaban karayo marka intaan ka maqlaa imika muuqaal baan soo sameynaya insha Allah dii lahado Instagram iyo TikTok iyo Facebook markaan ka tagay maxaan geen garay social media maxaan geen garay peace of mind ka geen garaynaysa maanta waxa ugu qaalisanaysa waa deganaantaada iyo xasiloonidaada hebel baa guursaday hebelaayo kala xagaa dhaqaaqday mid kala tagay mid kala safar galay mid baa xagan maray mid baa storygiisa wax soo geliyay mid baa waxaan kala sameeyay waxyaabo aanad rabinba inaad xataa samayso ayaa isaga ka dhalanayo moosa inaad samayso fikradda arrinta adigu lahayn oo meel kale aad ka soo aragtay baad iyada ka adiga soo qaato marka waxyaabaha aadka aan u arkay waxa ka mid ah deganaan aad u degan baan ayaad helaysaa marka qofka maanta hadduu ka yaraan karayo ama uu ka maqnaan karayo ama uu bil waqti ka maqnaan karayo social media aad baan ugu hambalyanaya content creator-adan ayaan creatorskana haddaan gaar ula hadlo oo dadkeena wax create gareeya creatorska sameeya short waxyaabaha muuqaalada sameeya
iyaga laftigoogu inay dib u eegaan waxyaabaha ka geyn garaynayaan waayo maanta platformka waa platform lagu dhaxaynayo oo rag baa jooga baag u fadhiya Facebook iyo TikTok u fadhiya sidii lagu hayn lahaa aad shaqaaga loo hayn lahaa qof bilaadan oo maanta dhan video 20 second 10 second 2 milyan oo malaasheed ayay maraysaa dareen farxada dareen naxdina dareen maxay boqolaal kun oo dareen baad dareemaysaa marka dareemadaadii iyo maskaxdaadii iyo dad kale aad u dhiibatay delegation u siisatay marka waxa ugu adag maanta xilligan aynu joogno waxaanu ka hadalnay in online business ay fududahay waqti saacad inaad ku dhistid hal maalin online business gaar ahaan waliba e-commerce online e-commerce aad hal maalin store-kaaga ku dhisid laakiin dib maaha waxa ay raay qaadanay wax fadhi u baahan waa waqti u baahan oo wax dadaal badan u baahan taasna haddii aad social media ku dhex jirtid oo maanta dhan kama maarmisid oo e-commerce marka lagu jiro TikTok iyo Instagram isticmaalaysa laakiin somehow xagga ay dadka kale entertainment ku tagayaan adoo inaad u shaqo tagtid waxaan idhaahdaa social media dad badan way u soo nasasho tagaan أنا وأوصل شقتك مركا إنه قف أوصل نسشتك ما إنه أوصل شقتك وين إذا هدي أما وات كونسوم جرينسا أما واحد نقول هدي أنا وحنبت هدي أنا أضو واحد كريت جرين أنا أضو سبعين وكريت فن دايما وحنبت كونسوم جرينسا هدي واحد كونسوم جرينس إنك السمر ما تقولسا مركا muhiimadda waxaan oran lahaa qofku intuu ka dhex bixi karayo inuu ka dhex baxo wallahi deganaan badan sababta yudhid si fiican baad u samaysay haddaan qofka aanad ku samaynayn wax ama businesskaaga aad ku randigaraynayn okay ma oran lahaa nimka matan saalaka boqol ka bax ma jooji karaysa wixii laakiin waa inaad horta marka koobaad ogaato imsaad waqti ku bixisa so like imka dad telefonkaad haysato wuxuu ku sheegi karaya weekii intaad ku samayso waxa sameeyay ustaad routine markaan joojiyey I think markaan wada joojinay 21 days aan eegayay bal saacadda aan isticmaalaya telefonkayga iyo si isku bedelayso kale percentage imka matalan maalintii imsaan ku bixinaya 3 saacadood bay bixi jirtay so waxaan imidaynaa maalintii 2 saacadood ku bixin karayo inaan maalintii saacad ku bixin karayo in maalinta dhan telefonkayga inaan gacanta saaro 35 daqiiqo kale hata igaga baxayso so inta kale ee waqtigayga aan hawlaha kale qaban karayo so waxa dareemaysaa active badan waxa dareemaysaa waqtigaaga inuu baraka yeeshay waxa dareemaysaa inaad saad sheegto kale aad concentrationkaaga uu joogo wixii aad samaynaysaa aad qabanayso laakiin at somehow way wad ku xidhan dadka inaad ku xidhnaato update-kii maxaa cusub maxaa qonaya waa qayb humanity-geeda ka mid ah in bulshada aad la socon karayso maxaa soo maadaama nahay dad content creator ah oo dadka u soo jeedinaya wax bulshadii wax baraya arday leh waxaan u baahanahay maxaa ka socda maxaa dadkii waa inaad la socon karaysadana aan update noqonin informationkii inaad ka wada baxdana maaha inaad ku wada jirtana maaha waa inaad laakiin garanayso inta aad kula jirto so inta haddii aad hesho taasaa ustaadku sheegoo kale waxaad noqon karaysaa qof degan qof wixii concentration samaynaya qof garanaya waxa uu samaynayo gaar ahaan dadka ku shaqaysanaya suuqa inay garanayaan exactly imsaad ku luminaysaa sababto haddaad la xisaabtanto waqtigaaga waxaad noqonaysaa qof aan la qaban karin waxaa kala tahay sano 24 saacadood waxa loo ordayo in dhammaanteen maanta dee shaqooyinkii kale loo joojinayo waa inaad xorriyad hesho waa inaad noqoto qof waqtigiisa 24 saac soo go'aaminaya u samaynaya wuxuu doonaya qabanaya ustaad waxa weeyaan waxaad soo ku soo noolayd Afrika wadankeeni Yurub baad dhimatay waad ku soo noolayd waad ka laabatay maanta waxaad joogtaa Kenya noloshiisa nool yahay baad aragtay waad garanaysaa qaabkan maanta qurbaha looga nool yahay waad tagtay Turkiga Dubai Arabta nooc walba waad aragtay maanta waxaad doortay meel visa oo samaynayso hawsha hadii aad wado aad xorriyadna tahay adigoo meesha joogo waxaaga control waa maxay waxyaalada kugula yaabka badan ee meesha hadda aad joogtaad ku aragtay waxyaalada aad la cajabtay dadku aanad markii hore ku haysay wajigaad ka haysatay ama Kenya ama wadankeeni iyo fursadaha aad ka aragtay waa maxay weyn aad oran lahayd waa wax adigu cajab geliya aanad feeling kugu noqon surprise أقول ما صنت عمار وسؤال ديات مهمة كيني وحني مدي هذا واحد جوجا أفرتي بلاد بني بحسب مثلا بيشن صدق لا تنكيجا بيشي تطوات بني مدي هاي بيشي تطوات صدق لا تنكيجا بني مدي مركي وهر ويك يلا بتشوقي بس العادي تنوض نقولي لكن ما كان يمدي حاجة كرياتيف دتك كرياتيف كان هاي دتك knowledge work كان هاي أقونت كل شقية gaar ahaan entrepreneurska waqtigiisu u saamaxaya ama shaqadan aan qabanaya ay saamaxaysa inaan meeshan doono aan adduunka kaga noolaan karayo marka waxyaabaha aadka ula cajiibay Kenya waxaa ka mid ah 1 cimilo fiican 2 cunto fiican 3 dad fiican 4 jawi fiican Allahu musta'an intaas markaad isku heshid aad creative tahay
dee aanad maanta meelna shaqo u tagayn si aad biilka iskaaga iyo waxyaabaha aad bixisid dee waad ku noolaan karaysa marka that's why aan u dheeraystay markii hore waxaan islaa December noqo xataa inaan waxoogaa kasii dheeraysta laga yaabaa marka ustaadi wallahi amazing weyn Europe iyo nolosha taala lama wada oran karayo waa wada challenge laakiin challenge waa aad u weyn weeyaan ustaadi waliba markaad shaqaynaysid maanta dhan aad ka fikiraysid shaqadii iyo noloshii waxaad noqonaysaa qof ila meerayso ku jira oo noloshiisii baa ila meerashada ay noqotay factories waxa yara shaqaysidna factory ay Allah musta'aan soo dhacayaan marka wallahi waxyaabahaas aadkan uga helo xaggan waxa kamid ah kow cimilada fiican laba dee ma dareemaysid Allah musta'aan ma dareemayo imika Kenya kolan joogaa laakiin inaan gurigii joogo ma malaynaya laakiin inaan waddankeeni joogo ma malaynaya dadka opportunity dadkii nimcada qaabka sameynayso ustaad I like aniga sanadkan waddankii tagay surprise ugu noqday qaabka dadku ay u sameeyeen saan horumar u gaarnay bulshadeeni horta uu dareemi karayo qofka qurbo ku soo noolaaday waddanka markuu arko saan nool yahay iyo fursadaha banaan maanta waxa weeyaan dad wax kasta halkan waa la sameeyay horta waa la sameeyay waxa sameysay hore loo sameeyay maadaama wixii la sameeyay waxa lagu daray shay kasta la sameeyay xeer baa loo sameeyay waxaad qaabanayso qofkii inuu iska ilaaliyo ma kanaad qaldaysaa ma kanaad sameynaysaa soo haddii ay ilaalin ku gashana cabsi badan ma ku galayso creative ma noqon karaysa saa adigu sheegtay waxa tahay qof creative oo fikiraya fikirkiisa maskaxiisa ka shaqeynaya aan la amrayn waxaan qabay iyo waxaan sameeyay lahayd macnaha qofku ku noolaan karaya si sharci ah oo raba inuu mishaar qaato cuno cabo seexdo soo kaco subaxdii wax u diyaar qabanayo laakiin qof inuu noqdo xorriyad noqdo inuu dalxiis meeshu doonayo aadi karayo uu maskaxiisa create oo samko saari karayo bulshada wax soo kordhiyo isagu wax uu happiness ku dareemayo oo sameynayo wax u baahan yahay meel uu dareemi karayo xorriyad yahay min uu wuxuu doonayo qaban karayo aan cidba ku jaardi gareynay bulshadii ah iyaguna qaabka ay kugu soo laamayaan ustaad wallahi waa soo qurux badan ka waran qofka waddankii jooga ee maanta fursadaas aan arkay fursadaas wuxuu doon inuu sameyn karayo ayna jirin meel kasta in regulation lagu sameeyo xeeras lagu sameeyo salahan oo kale maanta dad podcast soo gelinayo podcast shayada qaarkood ay ma galayna ka had oo waxyaalada qaarkood mawduucyada qaarkood kama hadli karayso sababtoo dadkii markay waxay qabtaan waayeen waxa la isku dayaa xeer la sameeyo wax ka soo sameeyso xeer wax ka soo sameeyso xeer factor waraaqada ku qabanaysa waddanka sababtoo wax karaysa waxa doontaa soo saari karaysa to qofka dhalinyarta waddanka jooga fursadaha ugu waaweyn aad ka aragtay maxaa kamid ah wallahi yani ustaadi waxaan ka qayb galay shir dhalinyaradu ay isugu yimaadeen dhalinyarada Youth Connect Africa la yiraahdo 2022 ka dhacay magaalada Kigali ee waddanka Rwanda waxa isugu yimid 10 kun oo dhalinyaro oo movers iyo shakers oo ka kala yimiday adduunyada qaybaheeda kala duwan hadday Yurub noqoto hadday Mareykan noqoto hadday all worldwide waxyaabahan aad kula cajiibay waxa kamid ahayd Africa isma lahayn anigu saas bay noqonaysaa muuqaal ba jiraan oo weyn kaga soo hadlay Kigali iyo waxyaabahan kula kulmay iyo madaxweyne Paul Kagame iyo marka aad baan ula cajiibay waxyaabahan aad kula cajiibay waxa kamid ahayd maanta Africa waa untapped potential marketplace weyn waa suuq aan la taaban oo potential weyn marka suuqa potential kana ayaa iskale dhalinyaro iskale suuqa potential maanta hadii aan rabo inaan wax sameeyo Europe company waxa jooga 500 sanadood soo jiray oo waxaan expert ku noqday laakiin waddankeeda sameeyay wax walba adiga ugu horeeyo xagan yar bay ayaan wada joognay maalin dhaweyd wuxuu keenay mashiino farshaxanka iyo waxyaabaha sameeyo oo birta shubaya oo ayuu keenay waqti way ku qaadatay qolo hindi oo kaliya tan Nairobi ku lahaa iska daa Nairobi East Africa oo dhan ku lahaa hadday bariga Africa oo dhan ku lahaa marka waxyaabaha cajiibkeed aad kula yaabay waxa kamid ahayd yarkaas wuxuu si fiican u fikiray imka ganacsigiisa boom ku jira adu mishiinadii nin adeeraya iga caawiyay buu yiri 80 kun baa iga soo siiyay bar China ka keenay bar Jarmalka ka keenay imka businesskiisa waa diyaabisa boom ku jira lacagtu sameeyay waa diyaabisa creativity hal abuur gulimid cid ugu horeysa ma jirto laakiin hadda Europe iyo Mareykan halayd وعد بقى كجورس حتى هذا جناح جالس إنه بوم النقطة وحبينك حاليتني حاجة وتكير وين وقت ناس تروستك ما دام هو بلو أوشن وين عد وواحد أنا قلت تابر لا ما قالوا ما شرع بك يلا بالعقد بدل هذا سميت العقد عشود بدل عشود طاقة عيسى دمور أطبال كان سمانس أقول لك وأنا كذا هذيني إن شاء الله وقتها صوت عندك سجور لجيابة وتحنا الصباح أو جد إن لغوص سمانية مالها قاعد كنا دافكر العقد بدأ فكر سبب ورنيه شن لا تمون هذا يوروب ودن كان جوجي تلو حلو ترى شن لا تمون هذا دافتين وحين ذاك بدن بقول كي بصدق بعشور سادس كم درس مثلا بقول كي فرطة
أستاذ لك ورد ودن كان جوجي سبا أجرمك حدا كان دقينا يكسيحون نمبر 1 نيكا تاجن لبانا كتاجن إما تشين وحوين ميربا لا يقول تلقى هل كان لعقت مركان قالوا واحد بحنيسا واحد لا يدادو لعقت عشورتي ما كانت بحسه لعقت لو أمس تشتغل لا بحنيسا إن أدفع إيدي لعقت أدفع إيدي ده عشورسا أنت هذا كسي بدته واحد بحنيسا فقاوسة الاشتوية سنة صوص ده لعقت عشورتي بحن لهي بتصير بحنيسا أو أحسن ما كنت بحس لما ربوا كونتين wax lagu reebo macnaha waxa weeyaan wixii oo dhan waa la qaadaya qof wala siinaya haddii aad rabto inaad safe ku noolaato oo macnaha biilkaaga qaato so workers tii saacad ba shaqaynaysa laakiin haddaad rabto inaad xorriyad noqoto wax fiican aad samayso daa is macnaha ma taala yurub maanta inaad lacag badan aad samayn karayso waxa weeyaan waa sababa dadku maanta jarmalkan degan oo kale ma jiro youtuberada ugu caansan content creatorka ugu caansan dadka lacagta ugu badan dhammaantood Dubai iyo Singapore bay degan waa sababuu ninkii waxaysta uga sababta waxaa arkaya inuu meeshaas sii samayn karay waddankeennina waa kow dadka fursad u samaynaysa oo dhalinyar badan baad ku shaqaynaysaa haddii aad ganacsi ka furato ood noloshoodii dabaraysaa ood iyagii fursad siinaysaa adiga ganacsigaaga hid buu noqonayaa waddankii waxbaad kusoo kordhinaysaa so I believe fursadda ugu weyn maanta aynu soo marayso waddankeenna wax kastoo taabato uu dhaqaaqayaa ganacsi waxaa jira aan geeyo alaab waddankii aan geynay imaka macnaha waxa weeye soo socdo waa qayr macquul sababta suuqii iscid taabatay ma jiro لكن ما كانت جيسو البريكس بار كل ما ذكينا برشدينا ويجعلين وحي بيرهبان هذيك الواحد كواليتي لما كسو كردينيسا at the same time وحويان واحد أركيسا سوق أصل لوجو بهاي يصل لوجو باهي دقب معناه حوي قف واحد بانت كرتي يربطان يينا ربط يسبدل يينا سمين كرسو لكن فرصته أقول بنان وحويان واحد سمين يسوق بناي وما أنت واحد هالي كريسا حدي أدربتين أونلاين كشقيسته فع كوريا بنان وتكبر كريسو e-commerce iyo sal Soomaaliyeed ganacsi aad dejin lahayd haddii aad rabto market sal loo sameeyo ustaadkii baa joogo kula dejinaya qaabka sameeynaysa experience-ga aad helaysay laga yaabo in ustaadku waqtan ay ku qaad 3 sano 4 sano una jirin 5 sano kor qof Soomaaliyeed kala hadli karaysay si suuq ganacsi uga sameeysa soo dhaqan kan garanay wuxuu ahaa in la qarsado wixii dadka Soomaaliga dadka kale uma sheegay halka alaabta ka soo iibsaday ama inta uu soo siistay laakiin maanta wax walba waa sishbar wala arkay wax walba free buu ku yaala internetka ku jira وقت information كان كجرنا لكن واحد ضبع حنطهاي ماشي information كينات كاش أستاذ event قابت كقيب قاطي واحد سنة السوق كلها قبت event عادوا قرح بدنا أو بيلجين كتكون قبته أو كهلاي أو دليل بدل لا سجال طبعا وطن أو يوروب اللي جاي مدي واحد أركتين دليل تسيء ولا يسيء فكريين حفكر كيو فكريين يحفكر كي قدام دي أفريقيا كي جاكن لها فرق يقول ده حيوان محاس إسلام بالشدة وأبا حنطها إن لددر جليو أو لوسو كردي والله هو السؤال هذا مهم هذا الدوكيومنتري باتريان صوّده ووضع رواندا كجورة مايو سيدي سكودلين إيو حسوق يسميين إيو سيدي حنا يسوق كلام مركا 10 باين مقبران كلنا هذين الصوماليين dadka Soomaaliyeed deegaanada Soomaaliyeed deegaanada Soomaaliyeed marka la leeyahay kii siyaasiga ama oo Somaliland iyo Soomaaliya iyo Ethiopia iyo marka la qaaday laakiin dad Soomaaliyeed meel kasta deegaanba waa wax meel aad ku farxaysid oo maanta indhaha ku qaban karayaan habeeraati ma jirto waxaan tagay marka wadamada xataa Soomaali deegaanada Soomaaliyeed dhalinyar ka socotay aad bay u yaraayeen dhalinyar iyagu isku soo dabaray baa ayaa yimid meesha marka waxyaabahan aad ku leeyahay waxa ka mid ahayd maanta ma jirin Allahu ta'ala marka meesha joogay emotion baan noqday wallahi you become emotion baan noqonaysaa markaad aragtid fursadka heleen dadka say dadku ugu soo dhiseen marka